gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo gurigiisa ugu waramayay Hon Cable TV ayaa waxa uu sheegay in ay iska caadi tahay guurguurka siyaasiyiinta marba xisbi ka baxa isagoo oo ka hadlayay iscasilaada xildhibaan Reeyte oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka wadani oo maanta sheegay in uu xilkaasi iska casilay waxa uu yidhi xildhibaan Ibrahim runtii waa nin qiimo leh oo reer Soomaaliland oo baarlamaanka ku wada jirnay muddo ka badan 10 sanadood xisbigana ku wada jirnay muddada dheerna hawlo badan aan soo wada qabanay nin aqoon-yahana oo fikradiisa madax bannaan weeyay Reeyte markii horena ikhtiyaarkiisu ku yimid xisaab kale ka tirsanaan jiray markii hore imma kana xor buu yahay fikirkiisa inuu wadani ka baxo oo xisbigu doono galo inaan xisbiga gelin xitaa dukan ku soo noqonayo diyaar baanu nahay mar labaad waa ku ixtiraamaya ra'yigiisa dadka kalena mar Hon Cable TV uu weydiiyay Cabdiraxmaan Cirro maadaama uu madaxweyne Siilaaye dhawaan kala kulmay siideynta mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani waxa uu sheegay in qaar hor la xidhay waxaanu yidhi anu hasleey tacaadigu inuu sii socdo ma ahayn hadda inuu istaagay hayd xariga mas'uuliyiinta kala hadlay madaxweynaha qaar ka dambeeyana waa la xidhay waxa xidhan hadda gudoomiyihii degmada Mandheera oo ku xidhan saaxil waxa la xidhay mas'uuliyiin fara badan maalintii dhaweyd madaxweynuhu mareeyay oo sodoneeye ka badan laakiin wala sii daayay markii dambe intii badnayd laakiin gudoomiyihii Mandheerana wali waa xidhan yahay mas'uuliyiintii hore waa xidhan yihiin marka xariga waxaan u aragnaa in xarigan waafaqsan sharciga madaxweynahana waanu kala hadalnay waanu jecelnahay in wixii arrimaha ku saabsan in talaabo laga qaado oo sharciga la waafajiyo mas'uuliyiinta xarigooda xorriyadoodii loogu bedelo aadan cabdi ciile Hon Cable TV